kulanka ugu adag Premier League toddobaadkan ayaa caawa la ciyaari doona ciyaarta u dhaxaysa Liverpool iyo Chelsea ayaa lagu wadaa inay noqon doonto ciyaar xiiso leh oo ka dhici doonta Anfield iyadoo labada kooxood ay ku jiraan marxalad cusub waxa hogaamin doona tababarayaal cusub Liverpool oo hogaaminaya Arne Slot waxay rabtaa inay muujiso rajadooda hanashada horyaalka halka Enzo Maresca uu doonayo inuu xaqiijiyo kooxiisa inay kasoo muuqato kooxaha afarta sare horyaalka tababarayaal Slot wuxuu wajahayaa cadaadis inkastoo kooxiisa ay guul ka gaartay kulamadii hore kooxaha ka hooseeya kulanka maanta ayaa noqonaya tijaabo muhiim ah oo lagu kala ogaan doono Slot inuu yahay mid mustaqbalka sii ahaan kara tababaraha tayadiisa kooxda ku hayi kara guul wax ku ool ah weerarka Reedis ayaa halis ah iyadoo Mohamed Salah si weyn uga soo muuqday kulamadii u saftay kooxda laakiin dhaawac muhiimka ah ee kooxda sida goolaya Alisson ayaa maqnaanaya waxa booskiisa buuxin doona goolaya kalaga dhanka Chelsea Maresca ayaa dib u soo nooleeyay kooxda iyadoo weeraryahanka Nicolas Jackson Madueke Sancho ay wax weyn ka bedeleen kooxda difaaca Chelsea ayaa dhibaato ka taagan iyadoo ciyaartooy muhiim ah sida James Cucurella ay maqnaan doonaan kulanka ayaa noqon doona tijaabo muhiim ah oo ku saabsan awoodda labada kooxood Liverpool waxay doonaysaa inay si joogto ah u xaqiijiso hoggaanka horyaalka halka Chelsea ay doonayaan inay cadeeyaan inay dib u soo kabsadeen dhibaatadii muddada ay ku jireen murugta Chelsea Arne Slot rikoorkiisa kulamada martida ama kulamada banaanka Slot tababarihii ugu horeeyay Liverpool oo badiyay 9 ka mid ah 10kii kulan ugu horeeyay kooxda hogaamiyo wuxuu anaad badan galiyay jamaahiirta Liverpool inay badiso tir inta like bilowga xilli ciyaareedka waxa ugu dambeeyay 35 sano ka hor amaanta oo dhan qaadanaya Slot oo shaqo fiican qabtay wax walba waa bilow sheekada oo dhan ayaa dhanka kale isku gidin karta sida Unai Emery oo guuleystay 8 ka mid ah 10kii kulan uu ugu horeeyay oo hogaamiyay markuu Wenger ka bedelay Arsenal 2018 bilowga cajiibka Slot waa in la sugaa halka uu gaari doono sababta Unai Emery kadib bonboonin lagu sameeyay waqtiga ugu dambeyn waxa isku raacay inuu san u qalmin shaqadii Emirates kadibna uu ka tagay Slot waa tababari hore Feyenoord ayaa nolosha England ugu raaxaysanaya si ka wanaagsan sidii dad badan moodayeen waxyaabaha cajiibka Liverpool lagu arkay sanadkan ayaa ah qaabkooda kulamada banaanka ay ku ciyaarayaan kadib markii ay wada mareen AC Milan, Ipswich Town, United, Wolves iyo Palace Liverpool ayaa badisay kaliya 9 ka mid ah 19kii kulan martida ahaayeen horyaalka xilli ciyaareedkii hore 7 barbaro iyo 3 gool daro ayaa u raacday waxayna ku qaadatay ilaa 9kii December inay badiyaan kulankoodii afraad oo way ah ama banaanka laakiin si ka duwan Slot wuxuu dhaafay heerkaasi kaliya bishii October waxa la sugi doonaa awooddu soo bandhigo tababar Slot iyo hogaamiyaha dhawaangalka ah ee lagu magacaabo Enzo Maresca kulankan xiisaha badan ee wada ciyaari doonaan kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa ah kulan indhaha lagu hayn doono kadib guuldaradii Arsenal iyo guushii gaartay kooxda United-ka 12kii qadar 30 daqiiqo ayaa kulankan la baasan doonaa ay ciyaari doonaan labadani kooxood kulankan xiisaha badan ayaa adkaatay 64 kulan Liverpool way adkaatay 81 kulan 49 kulan barbara ay galeen oo kulamada is arkeen kulankii ugu dambeeyay Liverpool gool eber ay ka adkaatay Chelsea tartankii FA Cup-ka wada ciyaareen Premier League Chelsea 4-1 ayaa looga adkaaday kulankii ka sii horeeyay 31 January la ciyaaray Anfield ciyaar ka dhacday barbara ay galeen ciyaartii ka sii horeysay marka la barbara ay galeen taa oo ka dhigan Chelsea in dhibco laga qaadanayay 3 kulan ugu dambeysay 2 ka mid ah Liverpool ayaa adkaatay 3 ka mid ah barbara ay ku dhameysteen labada kooxood Enzo Maresca Arne Slot ayaa la sugi doonaa Anfield galabta waxay ku soo bandhigaan adeehan daawade maxaa rajeynaysaa kulankan